بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ay taariikhdu tahay 5 bisha Agost 2018 waxaan idin soo gudbinaynaa wareegto ka soo baxday ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo u qaran sidatan magaca sharciga ujeedo magacaabid wasiiro ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markii uu arkay qodobka 19 faqradiisa saddexaad ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay qodobka 19 faqradiisa labaad xarfaha A iyo B ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay qodobka 100 xarfaha A B iyo C ee dastuurka ku meel gaarka ah markii uu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaal xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu tixgeliyay talada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu garowsaday baahida loo qabo magacaabida wasiirada wuxuu magacaabay Mudane Cabdullaahi Goodax Barre wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Mudane Sheekh Nuur Maxamed Xasan wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Mudane Xuseen Sheekh Maxamuud Xuseen wasiirka xanaanada xoolaha Mudane Cabdullaahi Bidhaan Warsame wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda Mudane Cabdulqaadir Sheekh Cali Baghdadi wasiiru dowlaha madaxtooyada Mudane Shawaqar Ibraahim Cabdalla wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha qodobka labaad wasiirada cusub ee la magacaabay waxaa la farayaa inay si degdeg ah ula wareegaan xilkooda qodobka saddexaad magacaabidani waxay dhaqan galaysaa marka uu saxiixo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dekreetadan waxaa ku saxiixan ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre sidaas daraadeed magacaabistaasi waa ay dhaqan gashay laga bilaabo saacadan waa mahadsantihiin